Okay, sida caadada ma ahayd video kale SSH aan sameynayna iyo sida gns3 aad ugu xirnaysid computerkaaga. Okay, halkan waxaa noo yaalo video kasta hoostiisa waxaa yaalo aan sameynayo badanaaba routerada meesha ka soo dejisan lahayd oo halkaan IT access routers iyo gns3 softwareka meesha ka soo dejisanaysid iyo meesha la soo xiriiraysid. Video kale waxaa jira sida softwarekan gns3 routerada u geynaysid waa ku dhex jira channelka waa ka raadsan kartaa. Waxaan rabnaa SSH inaan sameyno SSH iyo si loo karaagareynayo iyo sida computerka loogu soo xiranayo. Computerkayga laptopkaygana ku xirtaan rabaa ama computerkaygana ku xirtaan rabaa. Okay, intaan routerada la gaarin taas waxaa loo baahan tahay waxaa la dhahayo adapter si aad u xiratid gns3 iyo computerkaaga ay iskugu xirmaan. meeshan Windows wax lagu qoro waxaa ku qoraysaa device manager waa kan aad qoraysaa aragtay in wax marka meesha yaalo waxay tahay in halkan dhinac kale laga imaan karo device manager door meelood ka imaan kartaa this pc right kale ka daadada properties aad tagtid meesha u qoray soo saaran yahay device manager meesha ka tagi kartaa door meelood laga tagi karaa hal meel control panel dhexdiisa laga tagi karaa waa badan tahay. Haddaba aniga kule shortcut ka qaata badan ah si video uu soo gaabto intaan ka tagay. Okay, marka halkaan tagtid computerkaaga meeshan desktop ay ku qoran tahay hadda right click siisid waxa kuu soo bixayso scan iyo add hardware. Hadda aniga ma haysto xabad kaliya aan haystaa laakiin hadda kor tagtid action meesha ay ku qoran tahay file meesha ku dhagan action hadda tagtid waxa ku imaanayso add legacy hardware kan scan kan host marka right click siisin waa iswataan marka labada dhinac midkood ku imaan karaa. Hadda action aan taabtay add legacy hardware taabtay next leedahay meeshan install hardware automatically oo dhahay marabno manual aad dooranaysaa. Anaa sameysana leedahay wixiga waxba hay dooran automatic waa asaga ku doorayo next leh and then halkan waxaa dooran doontaa network adapter waana ka dhex doorata halkan network adapter network adapter ama ku hooseeya badanaaba next daasna halkan markay ku imaato manufacturerka hardwareka aad dooranayso waa inaad raadisaa hadana waa inaad kasoo dhex doorataa qaybta bidix halkan Microsoft and then dhinaca midigna waa inaad kasoo doorataa loopback waa kan Microsoft KM test loopback adapter waa inaad kasoo doorataa and then next leedahay saan hadda ku imaato waxaa lagu leeyahay to start install next new hardware click just next way. Hadda next dhahdid hardware cusub uu keenayaa finish uu ku keenaa hadda finish dhahdid wuu isdaminaa computerka waa soo shidayaa ama in wuxuu ku lahayaa kuma shaqeynayo ilaa ay restart aad sameyso restart caadi u sameyn kartaa markaas. Haddaba ani waa horaan usoo sameeyay mar raba in hadda mar labaad aan soo dejiyo adapteradu ay ugu bateen marka cancel dheh kan cancel dheh marka aad soo dhameysid computerkaaga kuu soo kaco kana ku imaanayo waxaad tagaysaa meeshan wireless ay ku qoran tahay ama cable-ka internetka and then waxaad tagaysaa network and internet setting and then waxaad tagaysaa network and sharing center and then waxaad tagaysaa change adapter setting kadibba waa kan hada internet 4 halkan haddaa fiirisid internet 4 waxaa ku xiga status tooskiis waa enable device name waa loopback fiir halkan loopback ku qoran adapter kuwa kale waa VMware iyo waxyaabo kale ay ugu jiraan aan haystaariga marka kaas waay marka gns3 buu soo xiri doonaa waa sameey doonaa iyadana SSH kan bilaabmayo routerka waa kan cloud waxaa ku jirta halkan NAT iyo cloud waa inaad isticmaashaa haddaad rabtid inaad laptopkaada ku xirtid marka cable-ka soo qaado routerkan keen fastentan 0/0 iyo cloud 1 hadda waxaan haystaa internet 4
أنا waan isoo baxday adiga waxa laga yaabaa inaysan kuu soo bixin marka right click say kan colourka korkiisa configure tag and then hadda waxaan haystaa halkan internet 2 internet 4 waa loopback aan soo sameynay loopback aan rabaa inaan isticmaalo saad u isticmaashid awoogatid haddaysan halkan kugu soo bixin dhinacan soo gelin inta soo dooran kartaa hadda halkan ka dooran weysid waxaa leedahay show specific internet service meeshan aad tagsiinaysaa and then halkan oo soo baxay hadda wifi yaa soo baxay vmware-dii wixii dhan soo baxay waxaan haystaa dhan oo soo wada bixin marka aniga hadda maraba ku aasaytana halkan maadaama uu yaalo mana ku daray laakiin haddii halkan ku oolinsa halkan kugu imaado halkan markaa kasoo dooratid waa inaad dhahdaa add halkan oo imaanay adan waa inaad dhahdaa apply okay asay leedahay and then fast internet 0/0 colourka korkiisa haddaa imaadan hadda waxaan dooran doonaa internet 4 sababtoo asaa loopback yaha dhowr xabaa 3 baa ku jirto aragtid laakiin haddii xabad keensata keliya hadday ku jirto xabadaas lay dooranaya hadda 2 xabay ku jirto midkii aad u baahan tahay markaas intaad dooranaya gigabyte 1 waxaan sameyn doonaa SSH iyo IP 192.1.0/25 halkaana 192.168.2.0/24 okay start leenahay waxaa shidmaya labada router kan automatically usoo shidmaado guudkan soo shidmo okay dhinacan tuwan soo gelinay horta guudka soo notice waxaa leenahay show interface guudka ku tusinaya and then kan right click say console tag configure terminal interface fast internet 0/0 IP address 2.1.255.255.255.0 no shut exit interface gigabyte 1/0 I think yep IP address 192.168.1.255.255.128 okay no shut okay exit hal mar aan ka dhamaanaynaa insha Allah macna SSH kiisu wixii sala sameeyna insha Allah SSH iyo telnet wuxuu ku kala gedisan yihiin hadaba telnet uma baahnid wax la dhahay IP domain kan waxaa loo baahan yahay IP domain SSH waa IP domain looga baahday wuxuu rabaa IP address inuu encrypt ku wada dhigo markaas uu bedelo hal kaliya ma taagnaanayo adi hal xabal ay taqaanaa laakiin hal xabbi oo badina sagaal marba dhinac kale ga oo wareejina marka waa inaa isticmaashaa crypto wax badan oo loo isticmaalaa VPN ka crypto loo isticmaalaa waxyaabo badan oo loo isticmaalaa crypto tunnel loo isticmaali karaa waxyaabo badan oo loo isticmaalaa IP saga loo isticmaalaa GRE tunnel wax badan oo loo isticmaalaa marka wax loo isticmaalaa waxa ku badan passwordada hadda key soo galay hore ku soo bilowday generate leedahay RSA marka hadda enter dhaho igama yeelayo please define a domain name first leedahay marka waa inaad dhahdaa IP domain -name waxaa leenahay somali.com soo gaabiyey okay hadaba crypto key generate RSA hadda caadi u shaqeynaya half gig ku siinaya marka ay marabno waxaan leenahay half gig 1024
okay username iyo password laan ma shaqeynaya hadana ilaa iyo username ma sameynayna sababtoo ma soo geli kartid username waxaan leenahay cisco okay password secret sameyn karnaa laakiin waa shakhsi u fiirino cisco hadduu jibin doono aragno hadduu qariya arki doona kulley kana qarin doono keygan waxbuu qarin doonaa masalna kan hal gig waxaan noo isticmaalayaa maantana wuxuu bedbedelaa passwordadaanaydii aan sameynay okay kaasti waa sameynay maxaa kale line vty 04 okay login local password 1234 normal okay transport input ssh all no dhihi karnaa waa telnet iyo wuxuu ku siinayaa ssh kan hataa dhahdeeda calaam su'aal waa kana all waa dhihi kartaa haday kugu xiran tahay ssh okay inta wax kala maraa waleena markaan IP interface brief wax kala ma isdabagaleen wr marka waxaan rabnaa kan computerka inaan fiirino waan sameyno waxaan la tagaynaa ethernet 4 meesha data laga tagaya soo maraysaa caadi inta markaa imaatid properties leedahay normal sida computerka IP addresska loo geliyo waa inaad ugeysaa bes kan waa DHCP kan waa static kan static gacantaada ku gelgelinaysid aan sameynaynaa 192.168.2.2 okay kan kale subnet automatical ku siinaa 192.168.2.1 default gateway-gan waa inaad gelisaa okay wuxuu leeyahay warning multi default gateways are internet to provide wireless maadaama aan ku xiranahay default gateway yaalkadaas meesha ku leeyahay yes aan leedahay close way and then see how halkaan inta iskula shaqeeyo waa inaad tagtaa computerkaaga halkaan cmd waa command prompt waa inaad tagtaa shakal kuguma shaqeyn karo saa u test garaysid IP addresski aad sameysay wixii inuu kuu shaqeynayo pinta 192.168.2.1 oo routerka caadi u shaqeynaya okay cancel leedahay kan kan soo kala dhamaanay kana rabnaa haddana inaan sameyno console interface gigabyte gigabyte 1/0 gigabyte 0 now 180 IP address 192.168.1.2 255.255.128 no shut and pin 192.168.1 هذه وش شغالة okay show IP interface brief IP address halkaan ka haysanaa laakiin subnetku yaasay ku gaarina waa su'aal meesha taalo okay waxaan leedahay marka haddii su'aashaasi ilaan jawaabta ka qabsan karo halkaan kuma qorin hanader badan halkaan ku qoraa halkaan kuma qorno su'aashaas ku yimaatay waa inaan sameeyaa marka show interface fasten gigabyte no second gigabyte 1/0 wuxuu ku siinaa marka inuu app yahay wuxuu kaloo ku siinaa MAC addresskiisa wuxuu kaloo ku siinaa IP address uu ku yahay 25 inuu yahay kaasoo ku siinaya IP address ku siinaa su'aashaas jawaabteedu waa taas okay waxaan sameynay SSH key pin waa shaqeynaa labadaba waa shaqeynayaan waxaan rabnaa SSH kan haddii aad rabtid inaad kasoo gashid computerkaaga cmd waa kan
أنا أملين ما إنه يشقيناي لكن بينك هرت كوا شقيناي بينك صامليناي 2.2.1 no بين هذا بين 192.168.2.1 عادي وشغلنا كاس حفظنا sent 4 receiving 4 loss 0 عادي وشغلنا لكن أملين ما إنه شغلنا أساسيتك كان صوتنا معايا أنت فيروس أي وجره firewall ليه كمبيوترك firewall وين هذا off أنت فيروس وين هذا off أنا هذا مرة من أنت فيروس off له صوته إنتر ذا وجرات مرك حدي أرتيد أن اللابتوب كان توصل وحنا تو SSH iyo waxa ma ku gashay aragtid SSH iyo wixii marka laga soo gaaro waa security badana ma yeelay security kan kala xiray email kan laga soo galo ogaana ilaa waxaan arkay gns3 ga qof banaanka ka yimaada amal taa dar SSH telnet kaliya lagu qoray SSH kaliya ma lagu qoray ma yeelay taas saas leedahay login leedahay and then username ki aan sameeynay wuxuu ahaa I think Cisco 192.168.2.1 unable to negotiate with IP address port 22 waxaas kale SSH no negotiating cyber phone there over AES 128 waxa waaye passwordada cryptiga waa ECPC waxaan dhan waa wada crypt oo keyga oo wax beddelay waa diiday Soomaaliya waxaan tagaynaa routerka caadiga marabo inaan waxaas xiriirada firewall iyo inaan iska xiro marabo antivirus kan tagaynaa console-kiisa run furna walana run furna console-ga marabo inaan soo okay halkan waxaa leedahay SSH space -l space Cisco 192.168.1.1 I think هذه وشغلنا سمعتي Cisco هنا بالوين ما تمركن قادرني هالكان okay 1 2 3 4 I think 1 2 3 4 انتم حصصوا هنا show run waxaana ga qaldan PC gu soo diiday routerka caadi u qaatay sababtoo PC gu wuxuu diiday waa firewall iyo antivirusadaas celcelinay Cisco 112 Cisco 12 فاكس عادي وشغلنا هنا بل ميلا كلا وحاو لان كونسول كحيرت سيسكو 12 كاريكو ورنتاي انت كزو قادي اوكي حلينا هيسوقيا كان قلان فرينا نو ارتسك اكسد ده اكسد ترابل شوتك وحرار ديمان واير شاقة هايتين واير شاقة ديمان اوكي start اوكي halkan loo yaalo halkan imaaw routerkan imaaw waxaan leenahay Cisco okay SSH version 2 waa kan ICA right click follow tag TCP script waa la diiday Cisco 1.25 version 2 لكن يا يقانين مرك بس بدك يسوع صار كر
waa kan waxaa la isticmaalay sha markii hore, haddana defer helmana la isticmaalay, group 14 la isticmaalay, sha 1 oo ay bedeleysa la isticmaalay, again defer helmana la isticmaalay. waa soo bedelaya maanta dhan guduud waa laga soo tagay, buluuga la isla marooyaa soo martid asigaas waa bedelaya marba nuuc iska dhigaya. yaa akhrin karo shantii xaraf aan sameynay intaan oo ka dhigay, yaa keeni kara waa shak marka SSH ma jebin karo, laakiin wuxuu jebin karaa telnet. isla SSH-ka qofkii u baahan Linux waa laga soo jebin karaa. yaa ani ma sheegin, yaa dad ay sheeginaa Linux waa laga jebin karaa bes anta ma jirto. okay kan saasaan ku kala harnay, saasaan ku kala dhawaanay waa shak. xitaa haddii passwordkaas ay gelisid waa bedelaya, kana bedelayo cryptigan waa bedeli doonaa. show run edit password normal cisco want to password 0 ala soo geliyay soo martid 0 waay, yani wax oo celinaya malahan encrypted ama ku jiro, laakiin yaa ka dambeeya alaabta kale ka dambaysa crypto key ka dambeeya rs ka dambeeya generate kaas wax bedelayo. okay saas ay ku dhamaatay SSH iyo computerka si loo isku gns3 ugu xirnaysid fantastic. kan telnetka aan sameynay isna start hadaa dhahdid asna cmd pin kaliya shaqeynaya kan hadeer pin 9168.2.1 kaasa caadi u shaqeynaya cmp-gas waxaa bin kareysay caadi ku tusinaya. hadaa dhahdid tcp follow waxba kuma jiraan kan sababtoo login ma sameynin, markaan login sameyso ku shaqeynaa, laakiin halkaan aan ku tusinaya inaad sameynaysid internet protocol message waa kasaa pin la sameynaysid iyo reply wixii ku tusinaa. waa dhamaatay. computerkan waa ku xiran kartaa SSH loo sameyn kartaa, waa shaq ahaan laguma jebin karo. habeen wanaagsan waa dhamaatay.